صياعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأنا وضع السلام يا أمد الصوماليات ميلكستو أجوكتان وقمت رجل الله فينا صوق الله ديرتن وقت دنبي إيتهاي لكن ما سيتشي بدن أول إيسو دريا أيان كتشيفون واي يا خطرت أي لا هاي فيسبوك حلقة كان يا فيسبوك خطرها كسو وجهاي دليرة الصوماليات شير قراية إن شاء الله dadka ha wada gaaro inoo share gareeya barnaamijka please barnaamijka inoo share gareeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شرقري برنامج كأرين دق عن ربعنا عن أمد الصوماليات عن وجدجو يعني وحير أو كويك مسج أوف كستو أو صوماليا أو فيسبوك استعمالنا عن وجدجو عن أشياء إن شاء الله بإذن الله كريم ديار وميه هنا فيسبوك كهال حلقة كر أيضا ما أنت تأي هيدنا كهال قبدي ولا عشان هيد مسكي هيد يقبلي كوري مقدشة الجدلي ragga gabdhaha laynay intaas ba ayadoo jadwalkayga igu jirtay maanta busy baan noqday hawlo kalaan soo qabanayay alxamdulillah life raali ahaada wictaan waan tuuray Soomaaliyeey waxa jirta arrin shalay ayni kala hadlayay oo wiil walaalkay la soo gudboonaatay asaga kaligiis xaaladii ma ahan Facebook iyo xalayta dadka aan u soo dirayay waynu xirnay waan ku guuleysanay horta waxaan idin leeyahay mabruuk alfa mabruuk idinka ayaa gaarteen mahadna ilaahay bay uga sugnaatay waxaa jira group Soomaali Faransiis Mexican iyo Middle American oo isla shaqaysanayaan oo qof kasta video ku wacaya videoga markay kugu wacaan waxa lagu leeyahay ma fiican tahay haa gurigaaga miyaa joogtaa kaligaa miyaa tahay haddaad kaligaa ahayn waa laga tagayaa FaceTime baa laga qaadanayaa waa laga tagayaa haddaa kaligaa tahay waxaa la leeyahay gurigaaga ma joogtaa haa waa la isa soo qaawinaya haddaa gabar tahayna nin baa isku ka soo qaawinaya oo markaad fiiriso ku sistisna intuu video ka sameeyo oo Photoshop ka sameeyo media soo gelinaya Facebook-gooda ma gelinayaan waxay raadsanayaan oo attack gareynayaan dadka family-gaaga ah dadka close-ka kugu ah Facebook-gaaga fiirinayaan yaa friend iskugu jira yaa relative kugu jira yaa family kugu jira ayay fiirinayaan dadkaagii bay wacayaan video-ga u dirayaan taleefanada monster ay dadka ku wacayaan ayaa waxa kamid ah 212 oo WhatsApp ah 715 oo WhatsApp area code-kiisa aan ahayn taleefan shaqeynaya account number bay ku soo qoranayaan waxay ku leeyihiin $300 ama $100 markay ku diidid $300 bixi aakhirka $50 bixi hadaadan lacagta bixinin madax goosho saan u haysanaynaa videogi hadaba Soomaaliyeey waxyaalaha inala soo gudba ma ka digtoonaalno isma caawino hadeertan wiilaan qadka ka baxay aniga video call hooyaday iyo aabahay haday igu soo wacaan xatay Facebook ma qabanayo Facebook dambo aan video ama qabto ama xatay call ka qabto it's enough last day yesterday qofkii taleefankayga haya oo aan xariirno oo aan family friends close nahay ama family aan nahay ama relative nahay taleefankayga wuu hayaa gabar kasta oo Soomaaliya marka waxa uga digayaa iyo wiil kasta oo Soomaaliya arinta Facebook ka socota waqtigeedu wuu dhacay waa lagu soo wacayaa video call baa laga qaadanayaa ama hadal ama hadlin Photoshop baa lagu soo dhijinayaa qofkii ku soo wacay ayaa wuxuu claim gareynayaa inaad qofkaas iyo adigu kulanteen inaad saksi la samaysay please Soomaaliyeey daminka ku dhicinina maanta waa wiilasheeniyo wada meyd ah oo drug la wada siiyay ee daawo la wada siiyay ee identity-gooda la garan laayahay qaarkood xabsiyada lagu soo dilay ayaa maanta ta Minnesota inoo daadsan dadka maanta ta dhibkaas uu ku dhacayo waxa kamid ah Facebook friends way daawanayaan wiilal badan kamid ah oo hadda i daawanaya I don't want inaan magacaabo ayagay u taala sida uga bixi lahaayeen
mostly friendskayga waan u diray codadkii la ii soo diray badanaa gabdhaha codkooda ninna uma diri karo ila soo wadaagay dhibkooda laakiin wiilasha codkooda waa wiilna wiil codkiis waxba kama qaaday wiilasha dhibkooda ii sheegtay dhalinyarada aqoonta leh ee education kale ee xushmada leh oo aabayaasha ah oo xaasaska u joogaan waa u diray be aware please and please and please be aware waxaa ka dhacday in la isseelgareeyo Facebook waxaa ka dhacday identitygaaga in la qaato waxaa ka dhacday video haddii picture la qaatay waad iska dareemaysaa because picture haddii lagaa qaato movement ma samaynayo laakiin video markii lagugu soo waco oo wiilasha qaarkood gabar qaawana ay meesha usoo istaagtay wuu sasayaa kii istubira oo gacanta ku watayna hadda waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa waa kuu soo dirayaa hira insha allah dadka waa la yaqaanaa wiilasha saqajaamiinta iyo gabdhaha saqajaamiinta dhow waa la yaqaanaa intaa u malaysaan joog please oo video qabataan oo waxaad doontaan samaysaan beri ka maalin waxaa dhici doonta Soomaali badan oo ay ka dhacdo in xabsi lagu xukumo annaga waxaa nagu dhacday ilmo yar oo 6 bilood jira ayaa picturekiisa inta la qaatay aabihiis oo haya oo xabadka ku haya aabihii video lagu soo wacay videogii markii lagu soo wacay waa laga duubay cunugii asagoo hayaba waxaa laga dhigay inuu saksi naag cadaan la sameeynayo waa la soo wacay aniga video waa la ii soo diray waxa la $1000 hadaan nasiisin videogan waa baxayna the only thing I get walaalkay magaalada uu ku noolaa waa Mareykan law enforcement ya ka jira Nebraska weeye Nebraskaan la xiriirnay law enforcement-gaan la xiriirnay shalayta waanigi inay dhahay videoga hala xiro Facebook waa la xira hadaba wiilka walaashiis sharafteeda rabow wiilka gabadha walaalka sharafkeeda rabto please don't trust anybody oo Facebook ka soo waca don't trust anybody oo Facebook inta ka soo waca friends iskaga ka dhiga maanta inta waxa jirta Soomaali wiilal iyo gabdhaba leh ayaa waxay la shaqaysanayaan ajnabi waa lagu soo wacayaa waa lagu la sheekaysanayaa naag ama nin qaawan baa lagu soo xirayaa hadhow photoshop baa laga samaynayaa waxa doontaa laga samaysanayaa wajigaagu waa passport sharaftaadu labadaada gacmood bay ku jirtaa video call lagu soo wacay ha qabanina please waa idin kaga digaynaa Soomaaliyay waynu fududnahay aad baynu u fududnahay please and please video call walaalkaagi kula dhashay haduu kugu soo waco xataa ha ka qabanin Facebook waxa ka socda maantayto harassment baa ka socota waxa ka socda identity sale baa ka socda waxa ka socda maxaa la dhahaa photoshop aan caadi ahayn Facebookna long suit ayuu ku yeelayaa haduusan arinta ka daba taganin auna qabanin law enforcement-ga la xiriirayo ay leeyihiin la xiriir wuxuu ku weydiinayaa meesha child haduu ku jiro RS big case weeye hadii child meesha ku jiro hadii maxaa la dhahaa video lagu soo waco hooyooyinka badankooda waxay u badan yihiin kuwa aan attention lahayn ayadoo haday doonto ilmaheedii naas nuujinaysa la iska soo wacayaa Facebook call-ka ma yaqaanaan wuxuu yahay waa la iska qabanayaa hameynada kamid ah 2016-17 waxay ku dhacday ana cunugteeda oo xanuunsan baalka neefta ku xiraaya oo asmada ana cunugayga oo xanuunsan ku xiraya wiilkayga ku xiraaya ayaa video call walaalkay igu soo wac waa da'dayga yar waan qabtay xataa ma garanayo video call miyo hamse ma ahayn hada uu ku jiraa u malaynaya saastaan u fiiriyay misatimaheegi waa de hooyo gurigeedii joogto waa garanay waa qaracma la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah wallahi I remember iyo billahi qaracanka meesha nabarka iga gaaray ana xasuusta hooyooyinka marka aan garanayni video call-yada wiilasha aan garanayni video call-yada please ha isku qabanina hadda idin kaga digayaa dhalinyaro badan baa halkan ku jirta ay ku dhacday dhalinyaro ayagoo ooynaya maanta isoo wacay markay shalay arkeen oo dhahaya waxaan sameeyna ma garanayno niman waaweyn oo taraagyo wada ayaa kamid ah niman truck drivers in United States baa kamid ah oo naag Mexicani intay soo wacday markay soo wacday maxaa rabtaa qaarkood wuxuu leeyahay videoga markay ii soo direen ay dhahan saan anigu dhacday wuxuu leeyahay wow you are cute baa la leeyahay what the hell you guys doing maxaa idin ka qaldan war mental illness ma yaatihiin war waxaan ku dhahay naagtan she can claim you in aad cadayn bayna haysataa videogeedi waa daawanaysaa naagtoo waxaa daawanaysaa isruxaya ninkii oo isruxaya naagihiinu daawanaysaan guys be careful
guys be careful ilaahay ka cabsada ilaahayna u noqda please videogan gaarsiin qof kasta oo Soomaali ah oo Facebook isticmaala hooyo kasta oo Soomaali ah oo Facebook isticmaasha waxaad qaban kartid malaha wiilasha qaarkood truck drivers waxa ku dhacay waa la soo wacday ayagoo logbookgoodii samaysanaya la soo wacay Facebookii waxay dhigteen messengerkooday dhigteen only thing saas ugu soo jeeda waxa laga rabaa face-ka kaliya qofkan inuu kula hadlayo hawl qaran ma qaban kartaa saaxiib waa ka waalan tahay leeyihiin please marka be careful anu ma raba inaa cidna magacaabo qof kasto afandasigaas ku dhacay dhibkaas ku dhacay more than 20 people oo wiilal ah oo dhibkaas ku dhacay ayaa Facebook-gayga hadda ku jira oo daawanaya haddaba marka qofkaas asagoo friend iskula ahayn fiiriya naagaha iyo nimanka in soo wacanaya ee Soomaaliyeed ee isku qaraabanaya ee maanta ku qaraabanaya video call-ka ay dadka ka wacaan inay harassment ku sameeyaan oo yiraahdaan waxaad noogu jirtaa gacanta haddii videogan aad rabtid inaan saaro 1000 c 300 c 100 c $50 c dhahaya yaa waa Soomaali iyo ajnabi wada shaqaysanaya soo waxa ina ka dhaxeeya kalimatu laa ilaaha illa allah kalimatu laa ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah ayaa ina ka dhaxaysa diinta islaamkana kuma dhaqanno halkan wixii ay doonto ayaynu samaynaa mostly 60% population-keena waa saas maanta waxa wiilasheenu u dhimanayaan isbitaalada ayagoo sakaraada u yaalaan ayagoo drugs laga dharjinayo u yaalaan dhibka soo gaaray gabdhaheena la biraynayo generationka wuu gadoomay wuuna baaba'ay please wiilasheeda Soomaaliyeed waa in jecelaha gabdhahayga Soomaaliyeed waa in jecelaha ma raba wiilkayga inuu dhibka ku dhaco ma raba inuu gabadhaydu dhibka ku dhaco messengerka Facebook please qofkii awooda haba tirtiraba messenger dhan ha iska tirtiro please iska taxadara video call ha qabanina allahumma hal balaqtu maanta anigu waxaan arkay shalay waxaan arkay daraad waxaan arkay more than 30 wheels and 30 girls oo cabanaya oo ka cabanaya Facebook video call lagu soo wacay oo Photoshop loo bedelay anigaygan hadlaya intaydaas inta la qaata inta kalena qof kale lagu soo dhajinaya waan kula hadlaya wow you so cute ba kula woo you six bag man six bag ba leedahay six bag okay six bag maxaa ka dambayn doona balaaya ka dambayn doonta hoog baa ka dambayn doonta gabar baa wiil Soomaaliya video ka duubay baad la qaracan sanaydeen oo heeso la soo duubayseen please maanta tafidmada socota Facebook it affected generation ka hadda maanta jooga Soomaalina say u affect garaysa wiilal waxa hadda halkaan igula jira ceeb aan hadli karinin oo leh walaalay maxaan sameeyaa anoo qaawan bay soo saarta anoo qaawan bahalkaygii baan xatay arkay baa lagu leeyahay waana Photoshop wajigaygiina waa ku dhagaya maxaan sameeyaa bay ku leeyihiin they shocked waxay ka qaban karaan male please messengerka iska delete gareeya hana ka qabanina ilaahow mu familigaaga ahaado don't pick up video call oo kaaga imaaday Facebook messenger it's out of control dibka jira maanta ta wax laga taxadari kara malahan asxaabteyda aniga inta ila friendiska walaalahay gabdhahayga wiilashayda intiinaba waa idin kaga digayaa intaas ayaan u soo galay xilliga waqti dambe ii tahay Norad time waxa ii tahay 10:32 bay ii tahay New York time xilli hurdo ii tahay walaalayaal marka haddaba please ilaah baa idin ku dhaarshay ha ka qabanina ajnabi Soomaali wax kasta waa isugu jiraan dadka ku qaraabanaya waa Jamaican waa Mexican waa Soomaali waa Brazilian waa Faransiis way badan yihiin mostly qofkii luqadda Soomaaliga yaqaana an English aqoonin qof Soomaali ay u soo adeegsanayaan qofkii English yaqaana English bay kula hadlayaan kii Faransiis yaqaana Faransiis bay kula hadlayaan kii Swahili yaqaana Swahili bay kula hadlayaan kii Indonesian yaqaan Indonesian bay kula hadlayaan please Soomaaliyay dab aadan kuleelkiisa arag kama leexatid waxaan kaloo ka codsanayaa wiilasha Soomaaliyeed ee dhibkaasi ku dhacay ee dhibkooda ila soo wadaagay aniga sharaftayda ka weyn inaan magacaabo laakiin waa idin la xanuunsanayaa hooyooyin walaalayaal waa idin la xanuunsanayaa laakiin la wadaaga dhibka idinku dhacay la wadaaga shacabka Soomaaliyeed sid aysan ugu gubanin please la wadaaga maxaa yeelay haday adiga maanta kugu dhacday berri bay aniga igu dhacaysaa haday aniga igu dhacdo berri bay gabar la mid ku dhacaysaa
please halaga taxadaro shacabkeena Soomaaliyeey identity-geenu waa identity-geena Soomaali waa Soomaali inaga iskala gurgurna anaga iskala qaadna wiilka Soomaaliyeed ee truck driver-ka wiilka Soomaaliyeed ee single-ka gabadha Soomaaliyeed ee single-ka tan truck driver-ka tan taksiilaha tan warehouse ka shaqeysa tan hooyada ay gurigeeda joogta tan banaanka ka soo xamaalata hooyooyinka yaa tihiin walaalaha yaa tihiin gabdhaha ayaga tihiin wiilasha sidoo kale wiilashayada tihiin please marka waxaad sameysaan ka taxadar naftiina fidmada Facebook maanta ka socota Facebook fidmadii waa socotay waxa ka socda ma maqli jirteen Afrika qofkii America ka yimaada ayaa la miisaantay oo lacag lagu xiraa waxa ka socota in fiiriyowgaaga laga duubayo inta foonka lagu soo waco in lagugu qancinayo gabar qurux badan oo cadaan ama gaagaab ah cidda Mexicaanka ah u taqaanaan lagugu qancinayo ayadoo qaawan lagu soo dirayo war gabdhahaaga dahab abeesa cagalay qurux malahan qorraxdaas haday tagto wax yar fadhida abeesa cagalay wax yar haday kula shaqeysana shiirka ka soo uraya ma ag istaagi kartid sharaf waxa la gabdhihiina Soomaaliyeed waxa idin leeyahay walaalayaalo please aynu ka hortagno messengerka amba iska tirtira oo delete dhaha amba qofkii qalad idin kugu soo gabar Soomaaliyeed baa saaka ii soo gashay video call magaceedan ubax laki baa la dhahaa bay soo gasha aakhirkii erayada ay ii soo qoday markaan ka qaban waayay erayada ay ii soo qortay warabbul kacba inaan afkaygu soo mari karin delete iyo blog baan isugu dhajiyay war gabdhaha lagu soo adeegsanaya war wiilal baa lagu soo adeegsanaya war dad waxaa jira sharaftii aan lahayd iyo samcadii aan lahayd $50 siisanaya $50 waxaad bixisaa markaad ilmahaaga McDonald u geysid ayaad McDonald markaa geysid ayaa $50 bixisaa oo uu ka baxa war $50 nothing waaye 1000 nothing waaye 500 nothing waaye laakiin ma ka fakarta adigu markaa laaluush ku bixisid fiiriyowgaagii qofkii inta ku soo wacay la qasa hadaa doonto runtaynu isku sheegaynaa anigu runta kama baqo ragga Soomaaliyeed qaar waxaa jira najaaso ah oo najaasa keentay ayaga dhanba gabigooduba kaada najaasiyiina aan rajo lahayn dumarkana kuwa najaasa ah ku jira runtaynu isku sheegaynaa nin iyo naagba wixii isku kaasoo qaawiya diinta islaamku waxay qabtaa xaq inay ku tahay xaaskaaga xaq inuu ku yahay ninkaagu xaq ma ahan qof bilaaani ah oo xaraan ka ah oo najaasa ah ee diinta islaamku ka xaramtay inaad fiiriyo intaad ka qabatid aad isku soo qaawisid amba asagoo qaawan aad duubatid ama daawatid diinta islaamku ma qabto Facebook qasaara ku socota waa la suud gareynayaa low suud baa ku socda investigation bay Facebook ku wadaan Facebook ayaga control gareynaya dadkan harassmentiga wada video callka dadka ku soo wacanaya videoga ka duubaya unlegal sexiga ku sameynaya identitygooda la wareegaya Facebook ayaga shaqadaas u taala laakiin inaga waxa shaqadeenu tahay inaynu Soomaaliyeey ka taxadarno shacabkeena populationkeena walaalkaaga muslimka ah xaq baa ka saaran u hiili oo markii laga gardaran yahay u hiili markuu gar leeyahana gacan si wiilasha Soomaaliyeed ee dulmanayaasha ee fiiriyooyaasha laga hayo ee loogu hanjabayo anigaygan baa walaalkay la ii soo diray Cabdiraxmaan oo baala picturekiisa ilmihiisa iyo asaga la ii soo diray waan ka dagaalamay shalayto booliiska wacnay anigu wiil booliis Soomaaliya la hadlay asagoo xarunta boolisku tagay hadii la kuurayo waa report gareynay taleefanaday dadka ka soo wacayaan fiiriyooyada ay ii soo direen oo dhaheen lacagta hadaa bixiso walaalka waa sii daynaynaa ay dhaheen picturadiisa waa tirtiraynaa fiiriyooyadiisa waa tirtiraynaa qoraalkii waa koobiyeynay printing baa dhahnay law enforcement-gaan u geynay walaalayaal dadku Afrika iyo Faransiis iyo Hindiya iyo America iyo Europe iyo Canada bay ku kala nool yihiin cid soo aruurin karta ma lahan laakiin fidmadu intaysa ku soo gaarinin dab aadan kuleelkiisa akin kama leexati Soomaaliyeed dambaskeeda waynu isnaqaanaa video callada la iska ilaaliyo wayna ka tagayaa walaashin qadro waxa idin leeyahay عفي عليا مسابح آخرية أدون لكن please and please attention please attention who calling you who he is who she is
why they calling you video callna waa unacceptable video call waa unacceptable qofkii aniga isoo waca wallahi Facebook is waa report garaynaya even if he call me in messenger caadi ah I will call to the Facebook and I will report them haddaba waa inii sheega no more Facebook time no more video call no more messenger qof aadan aqoonin oo aan familygaaga ahayn aniga maantayto taan arkay waa waxaan ka soo ashahaatay subxaanallah inni kuntu min adh-dhaalimiin ilaahayow subxaana wa tacaala cibaadadayada ha qasaarinin ilaahayow ishayada wax daran ha u soo jiidanin war nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu idin yiri dhalinyaroy war guursada haddii aad awoodaan haddii inan awoodin sooma indhihiina waxaa ka dhimanaya shahwadii iyo aragtidii dheerayd baa ka dhimanaysa haddaba walaalayaal wiilasha firyowga gabdhaha ku wacayo isqaawinayo ilaahay u noqda kuwa la shaqaysanaya gaaladow ilaahay u noqda gabdhaha Soomaaliyeed oo lagu wacayo waxaasow please waxaad samaystaan ilaahay intaad u noqotaan oo ilaahay ka baqdaan please sharaftiinu gacmihiinay ku jirtaa sharaftiinu gacmihiinay ku jirtaa sharaftiinu gacantiina ayay ku jirtaa firyow koolka la idinku soo wacayo waad awoodaan inaad diidaan baahi kuma haysa gabadha Soomaaliyeeday wiil Soomaaliyeed ee qurux badan ee qaymo badan ee 20 jir ah ee sigis baaga araadinay sida baag ku garab taagan wiilka Soomaaliyeed oo gabar qurux badan oo qaymo badan oo iimaan leh oo carfaysa oo guri wanaagsan ka timid oo diinta islaamka haysata oo xalaal ah oo qurux badan oo aad ku faantid oo dunida tan gabdhaha ugu xawrarciisana ayaad haysataan iimaanka Allah ina ku sugo iimaanku ha ina ku dago iimaanku ha ina deeqo ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana kuwii diintooda u dagaala dadkooda u dagaala shacabkooda u dagaala sharaftooda soo ceshta Allah ina ka dhigo aniga nabigeena calayhi salaam wuxuu dhahay kalimatu tayyibatu sadaqa aniga am search waana u diray dad badan baan u diray waxyaalaha aan arkay waa wax ishaada naclatullah calayka aad tiraadid waa waxyaalo aadan u adkaysan karin waa waxyaalo aadan daawan karin ilaahay ha iga cafiyo fiiriyooyaashii la ii soo diray ee wiilasha calaacalaya ii soo direen ilaahay ha iga cafiyo indhihii aan ku arkay ilaahay oo aakhiraha igu cinqaabin ilaahay oo aakhiraha igu caroonin ilaahay oo rabbi oo subxaanahu wa tacaala bari baan ka ahay innii bariyu baa taaganahay ma arkin mana urin mana maqal photoshop kaas oo kala ah mana arkin mana maqal noloshayda waan arka siyaasiyiin photoshop laga soo samaynayo laakiin qof dhan oo photoshop inta asaga dhan laga soo dhigay kalarkiisi iyo kalarka kale la isku ekaysiinayo oo run turu laga dhigayo waa kii iigu horeeyo aan arko waa kii iigu horeeyay oo aan arko marka walaalayaal ilaahay u baqa war ilaahay u baqa war ilaahay u noqda war ilaahay aynu ka cabsano please video callka gabdhaha lagu wacayo hala daayo please video callka wiilasha lagu wacayo hala daayo walaalow gabadha ma rabtaa taleefankeeda qaado shukaanso ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu baneeyay inaad guursatid waa geyda diinta islaamka kugu xiraysa raadso guurso meel degso gabadha Soomaaliyeed wiilka ma ka hesha walaalay ninka waco shukaanso iska dhaadhici yaa qalbigiisa soo jiido guurso war intaas ayna ku filan diinta islaamka aynu haysanaa dad wanaagsan baynu nahay raggi maanta haraasmanti baa lagu wadaa naaga video call loo soo adeegsanayaa dumarkii sidoo kale wiilal baa loo soo adeegsanayaa fidmada hadaynu fiirsano moor aan fidmada fiirsano حفصة وارون ما شاء الله هذا مرك ولا ليال ويلش ودبين والله عاو مسيح عنكر إله بان كدارتي على شيء الرقمتي ويلش متكمدي وأيني وويل وذاد أو أنا أقانو أو أنا آمن سنين إنتو ناق أسقو قاون وعه فيريو إنو كوعنا يو ناق عداني إنت أيضو قاون صوّع عتي أسقو الله جيسي تراجع سماي سنايا الله جيسي كشقي سنايا فيريو كول قدوبي هذانا انت لا soo qaatay oo dharka dhan laga soo dhigay yaa ayaa waxa la yiri saaxiib $1000 ma soo dhaadhacaysa
haddii kale videogan friendskaaga iyo familygaaga iyo dadka dhan baa u diraynaa war musiibadaasaa jirta marka messengerka goodbye baa anigu kolley yidhi goodbye messenger inta qof iigu jirta blog baan ku qabanayaa inta familygayga ma ahan familygayga dee walaalkay ima geyo wiilkayguna ima geyo ninkaygana dee waan ban haystaa abtigayna ima geyo aabahayna ima geyo intii facebook igula jirto familygaygaana gabdhuhuna ima gabaa ma dili karo muxuu dilaa subxaana allah camaa yasifuun ma fiiriyow qof ku jiraa dili kartaa maxaa dili kartaa gabdhaha soomaaliyeed bay ka adag yihiin allahu akbar haddaba marka soomaaliya waa iniin digay ha laga digtoonaado maanta ta missionka facebook ka socda ha laga digtoonaado video call yaa la qabanin qofkii awooda oo aan awoodin inuu video callkaas uu iska daayo dhiliid iska dhaha dhiliid hee iska dhaha meesha naclad baa ka socota ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga xarimay baa ka socda xaaraan baa ka socota najaasaa ka socota ilaahay subxaanahu watacaala ha noo dembi dhaafo dembigeen iyo dembigi baaridkeen allaha dhaafo ilaahay suukan dambi dhaafo dad baa laga yaabaa inay u maleeyaan dana gaara inaan ku leeyahay videoga kan iska kay cafiya walaalayaal aniga cafi aliya masaabax wiilasha soomaaliyeed ee meesha ku jira ee dhibku la soo kulmayna ilaahay waxaan idinkaga baryayaa samir jadiida inuu ina siiyo teeda kale hal baan inii sheegayaa wiilka soomaaliyeed oo videoga laga duubo lacagta lagu weydiinayo war nin baa tahay naag ma tihid nin baa tahay naag ma tihid adoo qaawan baad banaankaa mari kartaa haddaba marka $1 kuma bixin karta videogaaga naagtii ku soo wacatay ninkii ku soo waca ee kuugu hanjaba video baan kaa hayaa waxaad tiraahdaa saaxiib nin raga baan ahay naagna waa la ii baneeyey la wareeg cirka la aad baad sheegaysaa dhulka la aad kumaba aqaanba haddii lagu dhaho waa ku dacwaynaynaan dacwada inoo fura destinationkii xilligay ku soo waceen meeshay joogeen everything facebook baa laga helayaa yaan la idin baqsanin ha biqinina kii video laga hadlow kii video laga hayow naftaada deji laba ragcadood ilaahay u tuko ilaahay u toobadkeen qaladkaas waad gashay qofaadan aqoon oo ajnabi kaa ah ayaa taleefon ka qabatay waxaad doonta waad samaysay allahu aclam waxaa isla samayseen xumaanta gabdhahana bannaankaad soo dhigtaan xumaantiinana waad qarisaan marka ina ragow waxaan idin leeyahay waan idinka xanuunsanaynaa waa idin dhalnay waa idiin dhaxnaa waa idinla dhalanay walaalihiin baan nahay meel aan idinkaga harna ma lahan waa gubanaynaa markaa idinkioo la idin baadargaraynayo ama dhib la idiin geysanaya aan aragno haddaba marka walaalayaal is aruuriya insha allah ilaahay ha ina xifdiyo meel kastoo aynu joogno awlaadda allah inoo xifdiyo reeraha allah inoo xifdiyo awlaad siciida allaha na siiyo inta reer le ilaahay reerkooda ha u adkeeyo intaan reer lahayn ilaahay xaasas wanaagsan ha siiya rag iyo dumarba waa in wada salaamayaa waa in wada jeclahay meel kastoo aad joogtaan cafi aliya masaabax haddaa hadalkayga dhibsateen iska kay cafiye qodhin iyo xiradiin wabilaahi tawfiiq